qadiyadda gooniysutaaga Somaliland ayaa gaartay halkii ugu xooganayd 30 sano ku dhawaad wixii ka dambeeyay fagaarihii Djibouti ee Somaliland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya Hargeysa waxay u muuqataa inay u ruqaansatay jiha kale baarlamaanka Gambia xukuumadda Guinea iyo dawladda Kenya ayaa bilihii u dambeeyay siyaabo kala duwan loogu gurfeeyay qadiyadda gooniysutaaga Somaliland Kenya waa dalka ugu xoogan ee riixaya hawshan golaha wasiirada ee dawladda Kenya ayaa la filayaa inay dhawaan ka doodaan in Somaliland la aqoonsado madaxweynaha Somaliland Muuse Bixi Cabdi ayaa isna la filayaa inuu booqdo magaalada Nairobi ee waddanka Kenya dadka xogtan dusiyay waxay sheegeen in la isku soo hadal qaaday in Somaliland la aqoonsado booqashada madaxweyne Bixi koor waxa kale ay wararku intaa ku darayaan inay Kenya arrintan u saartay khubaro soo dhiraandhiriya koor inta aan la geynin golaha wasiirada ee Kenya xubno ka socda dawladda Kenya ayaa dhawaan booqday madaxtooyada Hargeysa markay ay ku laabteen magaalada Nairobi waxa ay sheegeen in arrinta Somaliland ay u baahan tahay in si dhab ah loo wajaho qaar ka mid ah wargeysada ka soo baxa Kenya waxa ay sheegeen in Nairobi ka fakarayso in Hargeysa la xirato marka la eego isbedbedelka Muqdisho hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa isna laga yaabaa inuu dhawaan booqdo Hargeysa inkastoo aan waqtiga la sheegin haddana Raila Odinga waxa uu hore u sheegay inuu aqoonsan doono Somaliland haddii uu qabto xukunka madaxtinimada Kenya dadka arrintan sida dhow la socday waxay sheegeen in xiriirka maalmahan ka dhaxeeya Raila Odinga iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta inuu sababay in arrinta Somaliland miiska la soo saaro siyaasiyiin arrintan xoogaal u ah ayaa u sheegay adduunka TV inay jirto shabakad isku xiran oo ka kooban dad u dhashay Somaliland kuwa u dhashay Imaaraadka iyo kuwa Kenyan ah oo loo xil saaray inay qadiyadan wadamo badan ka iibiyaan ilaa hadda wadamada Guinea, Gambia, Imaaraadka iyo Kenya ayaa si dhow u qiimeynaya xaaladda Somaliland oo ka fakaraya inay aqoonsadaan dalalkan qaarkood dana ayay ka leeyihiin Somaliland halka qaarka kalena ay dagaal siyaasadeed kula jiraan dawladda federaalka ee Soomaaliya Somaliland waxay dhawaan is aqoonsadeen Taiwan oo iyaduna sheegatay inay ka gooday dhulweynaha Shiinaha Kenya waxay qorsheynaysaa in dhawaan qonsuliyad ka furata magaalada Hargeysa wakiilka Somaliland u jooga magaalada Nairobi Baashi Cawil Xaaji Cumar ayaa dhawaan u sheegay wariyaasha in arrimaha Somaliland iyo Kenya ay gunaanad marayaan hadalhaynta arrimaha Somaliland waxa dhawaan ku soo biirta Masar xilli wali ay taagan tahay xiisadda webiga Niil ayay masaarida isku dayaysaa inay saldhig military ka samaysato Somaliland Ethiopia ayaa si weyn uga soo horjeesatay arrintan Masar waxay og tahay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay hadda toos ula safan tahay Ethiopia sidoo kalena uusan xooganeyn xiriirka ka dhaxeeya Muqdisho iyo Qaahira waxaana ay hadda gorgortan kula jiraan Somaliland hadda maamulka madaxweyne Bixi wuxuu ciyaarayaa kaalin qasbi karta Ethiopia ama ay aqoonsi ugu heli karaan Masar oo muhiim u aragta wada shaqeynta Somaliland Kenya oo dhawaan ku fariisatay kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ayaa la soo warinayaa inay xog badan gelinayso qadiyadda Somaliland si ay culays u saarto dawladda federaalka ee Soomaaliya oo diidan in dacwadda badda laga soo celiyo maxkamadda cadaaladda adduunka madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya oo diidan inay Somaliland ka go'do dalka intiisa kale ayaan ilaa hadda qabanin shaqo la mid ah midda Somaliland waxa kale oo taliska madaxweyne Farmaajo lagu eedeynayaa inay dhawaan qadiyadda Somaliland ka dhigeen mid caalami ah kadib markii ay kula hadleen ama ay ku qaabileen madal ay dhexdhexaadiyaal ka yihiin Mareykanka, Midowga Afrika, Midowga Yurub, IGAD, Ethiopia iyo Djibouti qadiyadda Somaliland waxay hadda u muuqataa mid intii hore aad uga xoog badan waxaana loo sababeynayaa laba arrimood midda koowaad waa siyaasadda arrimaha dibadda ee dawladda madaxweyne Farmaajo taasoo lumisay dalalkii danaha muhiimka ah ka lahaa Soomaaliya iyo midda labaad oo ah in adduunku uu hadda fahmay ahmiyadda dhuleed ee Somaliland dadka sida dhow la socda arrintan ayaa fila Soomaaliya ugu baaqay inay hurdada ka toosto oo ay arrintan si xirfadaysan u maareyso